kasoo qaybgalayaasha halkan soo qaybgalay waxaan ku salaamayaa dhammaan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhawaynayaa halkan gudoomiyaha gobolka Nugaal taliyaha qaybta gobolka Nugaal agaasimaha waaxda tayadhawrka iyo kormeerka ee wasaaradda waxbarashada Puntland Suldaan Cabdiqani Qorane kormeerka guud ee gobolka Nugaal iyo dhammaan xubnaha kala duwan ee ka socda dawladda iyo marti sharafta kale aniga oo aan kala qaadayn macallimiinta maamulka iyo ardada reer Nawaawi iyo bahweynta kale ee ka soo qayb gashay iyo bahda saxaafadda ay nagala soo qayb galaan xafladan waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad mahad celinka bacdi runtii caawa waa hameen weyn halkan waxa caawa ku qalin jabiyay oo xafladooda aynu u fadhinaa dafcadii 13aad ee dugsiga sare ee Imaamu Nawawi Garowe oo ay ka baxeen imtixaankiina uu u dhamaaday arday dhan 160 arday dabcan waxaan leeyahay Nawawi Garowe waxa lagu yaqaanaa inuu yahay hormuudka gobolka Nugaal ayaa lagu yaqaanaa kaalimaha ugu sareeya Puntland ka gala isla markaasna waxa weeye hoggaan u ahaa gobolka Nugaal runtii aad iyo aad baan u amaanayaa ardadan halkan fadhida marti sharaf waxaanu gelinay juhdi aad u badan waxaan rajaynaynaa sidii 10 sano u dambeeyayba ay ka soo muuqanayeen kaalimaha ugu sarsaraysa 10 arday ee Puntland ugu saraysa ayaan sanadkana ku rajaweynahay kuna hanweynahay in aanu dadaalkeegii aanu soo bixinay aanu gaari doono aanu heli doono insha Allah ta'ala sidaas ayaan rajaynaynaa runtii sharaf weyn weeye aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ardada halkan fadhida walow aan dhihi karo waxay ahayd imtixaanka marka la dhajiyo inaanu farxadayada la damaashaadno saasay ku macaan aad ugu macaanayd laakiin haddana waxaan leenahay yoolkayaga insha Allah ta'ala waan gaaraynaa waa mahadsantihiin ayaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad maamusaya madaxdan halkan fadhida waxaan kaloo maamus aad iyo aad siinaya macallimiinteeda quruxda badan isoo barbaarinayay cilmina isoo barayay maanta aan heerka soo gaarayna intaas oo dhan gacanta isoo hayay alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh mahadda labaadna waxa iska leh macallimiinteeda mahadda saddexaad waxa iska leh waalidkayga oo intaas oo dhan isoo garab taagnaa mahadda afraadna waxa iska leh aniga oo ah ardaygii intaas oo dhan u soo taagnaa inay dadaasho waxaan ku hadlayaa afka ardayda qalinjabiyayaasha dugsiga sare ee Imaam Nawawi oo ah dufcadii 13aad waxaanu nahay 160 arday oo ka qalinjabisay dugsiga Imaam Nawawi sanadkan sugaysana natiijada imtixaanka waxaan inoo wada rajaynayaa dhammaanteen natiijo aan ku faraxno iskuulkeenana waxaan u rajaynayaa halkii uu ka muuqan jiray inaan uga soo muuqano iyo in ka badanba insha Allah waan isku kalsoonahay waanuna sugaynaa inaanu gaari doono heerkaas iyo heer la mid ahba laqad ta'allamna minkum al-kathir kama ta'allamna jami'an من هذه المدرسة والمعلميها الفاضل الذين تميزوا بالعلم والشخصية القوية واللطيفة ومعلميها الفاضل شكرا لكم على وجودها بينكم مما لا شك فيه أن دوركم في الغاية لها أهمية ولكم منا كل التقدير والاحترام ولكم في قلوبنا على الحب الكثير ولكم في قلوبنا على حب الكثير والإخلاص والاحترام والتقدير لما قدمتم لنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله. I told in a topic farewell speech to graduating students. Dear guests of honor members of the school board, principal, teachers, parents, and above all the graduating class of 2021-2022. We are glad to have the opportunity to deliver this
farewell speech. Today, we gather here to celebrate success. As we celebrate this success, we also mark the end of an era and the beginning of another. Our brothers and sisters that are graduating today are through with the highest class in secondary level and are going the lowest one in university level. To them, we say congratulations. You have a lot to be proud of despite some hard tasks and challenges that we have encountered in the course of our studies at Imam al-Nawawi Secondary School. At the end of it all, we have completed this part of the journey with the great achievements and beautiful memories. We have been good students and have shown great discipline in our relationship with the teachers, matrons, junior students, and among ourselves. We have left behind a very good legacy for next candidates and other classes to follow. Lastly, we wanted to implore the next candidates of 2022 to 2023 to always see yourself as ambassador of this school, speaking and conducting yourself in the way that we taught while here. Never allow selfish interest to blemish your character. Let strangers and new acquaintances recognize how disciplined and humble you are in awe. Thank you for flying our school's flag so high. Farewell, my school and my teachers. Schoolkayga martida iyo dawladda intaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum sidaan soo sheegay maanta waxaan wadaa horta mid baan ka cudur daaranayaa abwaan maahi anigu waxaan ahay hal abuur ta horta aan ka cudur daarto waxaan wadaa maanse la yiraahdo guushu waa dhaxalkeena oo aan macallin kasta ama macallin jaamacadeed ha ahaado ama professor ha ahaado marba macallin hadaa tahay waxaan leeyahay guushu waa dhaxalkeena waxaan ku bilaabayaa maansadan sida tan gabaygaan tirinayo gararkaan ku hadlaayo garcada hadalkiisiyo murti gole ka fuulbaan soo gocdaa waligeeyo ma golgoola afkayge gurti iyo abwaanow garcada maamulkiyow barayaalka muraydiintiyo professor gobeedow gacalkii aan jeclaayow bal gudooma salaanto gabaygayga dhagaysto waa abaal gudareeno naftu ay gacalootay gurtidii bahnawaawiyo goobtu ay caamireeno guulaysta afraadiyo gunudkii u sareeyow hanad goostay aqoonto mirahaad guranaysaanba deeqdii guulla nasiiyo galad waarid u qaato ma abaalgudaysaano maba goyn karaysaane u ahaada gabaado guulla uga cabsoodo waaridkiinu gargaara guulaysta afraadow geedkii aan harsanayniyo gurigeenna nawaawi gabaad weyeelayso waa giraangir sarrayso ku gaarsiin horumarkaagee ruuxii caawa galaayiyo midka gabagabeeyow waa xusuus aan go'ayne guulaysta nawaawi ardaydaan garanayne geesiyaasha ahaayow gacantoodu furnaydow garaadkoodu sarreeyow midaan guuldarro qaadan kaalmuhu galayaaye naftu waa gacalootee gacmihiinna ishaysto geygiinna barwaaqiyo dhaydiyo garoorkiyo caanihiinna ku gaaxdo marna gees ha u dhaafina ubixii la guraayow geedka baarka u sarreeyo ubixii la guraayow guulaysta afraadow waa gunaanad ujeedkuye barayaala bagaaro go'aankoodu adkaayow hiraalkoodaan ku gaarnay waa giraangira adduuno guulaystaha u horseeda barayaal gurmadkiinniyo garabkiinni dadaal baan gulaha ku mutaystaye aabbahay garabkiiyow gacalkiisi rumaadow ma gudaayo abaalo aabba goyn kari maaye guuxii iyo canaantii maalintaan cashar gooyiyo maalintaan garan waayo markaaad i garaacdo geesi baan ku naqdaayo garaad baanba ku yeeshee garaafiyo dhibaato godabkuuguma tiirin galgacayl baan u qaatay garaadkaygiiyo uurkaan ma xumaan geliyeene aan guulaysto adeerow garabkaaga isiiyo igaarsiyo cafiskaago aan ku gaaro adduunkee miriha aan goostee guushu waa dhaxalkeenna waa mahadsantihiin waxaan jeclahay inaan hal cunwaan aan halkan ka samaysto oo qurux badan oo aan jeclahay inuu qalbiyadiinna uu ku sawirmo insha allah ciwaankaasi waxa weeye aan rabo inaad xambaartaan waxaynu u baahannahay alcilm maca alakhlaaq markii la yidhaahdo
yimaado dadka intooda badan waxaa u sawirmata oo ay malaynayaan qof iska yara aamusan oo aamuskiisu badan yahay oo maaragtay maryaha dharka wadaadada iyo xogaa iska xidha saasay sawiranayaan qofkaasi akhlaaq buu leeyahay bay dhahaan akhlaaq buu leeyahay akhlaaqdu sidaa ma diintu intaa kaliya kuma astayn akhlaaqda ama ereyga marka akhlaaq aynu ballaarinno oo nidhaahno waa dhaqanka weeye idan marka nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuuba leeyahay bucitu liutammima makaarima alakhlaaq waxaaba la ii soo dirayba inaan dhammaystiro dhaqamadii wanaagsanaa inaan dhammaystiro akhlaaqdii marka ama dhaqankii oo aanu ka doonayno ardayga aanu soo saarnay inuu yeesho maxay tahay akhlaaqdaas waa inuu yeesho ixtiraam ummadda la ixtiraamo qofka mas-uulka la ixtiraamo waalidka la ixtiraamo macallinka wax ku baraya la ixtiraamo waxaad garanaysaan nebiyullaahi aadam calayhi salaam in markii ay yidhaahdeen malaa'igtu waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa aayaddaa markii la soo wado waxay yidhaahdeen maxaad ku falaysaa ilaahayow oo abuurkiisa aad ku falaysaa mid kuwa dhulkan fasaadin doona oo dhiig daadin doona oo sidaa yeeli doona waxa ay ku ogaadeen in sidaa ay samaynayaan tafaasiir kaloo badan weeye hadda uma soconno nebiyullaahi aadam marka waxaa la sheegay wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika cilmi gaara baa la baray kabacdina malaa'igtii buu wax baray markaasaa waxaa lagu yidhi malaa'igtii usjuduu u sujuuda liaadama fasajada almalaa'ikatu kullum ajmacuun aayadda kale waata odhanaysa malaa'igtii baa u sujuuday sujuuddaasi waa sujuud karaamayn waaye waa sharfid cidda wax bartay inay respecti u yeelaan oo ixtiraam gaara u muujiyaan inay madaxa gundhiyeen waa lagu fasiray sujuud caadiya inay sujuudeenna waa lagu fasiray adigu sharfid iyo karaamayn u daa inay tahay idan marka ardayga aanu soo saarnay waxaan ka rabnaa inuu alcilmu maca alakhlaaq u leeyahayoo dhaqan wanaagsan iyo ixtiraam inuu leeyahay kow qof cadaaladda raadiya oo cadaaladda jecel inuu yahay oo dulmiga ummadda kala soo horjeedo oo maaragtay dulmiga ka ilaaliya inuu yahay waxaan doonaynaa inuu yahay qof maaragtay dulqaad ninkii ashaj ibnu cabdilqays saxaabiga ahaa nebiga markuu yimid sal alla alay wasalam inna fiika khaslataan yuxibuhum allah subxaana wa tacaala laba arrimood baad leedahay oo ilaahay uu jecel yahay buu nebigu ku yidhi sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu yidhi alxilmu walanaa waxaad leedahay dulqaad iyo kaadsiinyo waa laba sifowna qofkii marka hadduu wanaagsan yahay waa la sii dhiiragelinayaa dee haddii wax ka dhimayana waa inaa u sheegtid soo maaha idan marka akhlaaqiyaadka dhaqanka nebigu sal alla alay slam diintiisoo dhanba dhaqan bay ahayd sidaa aynu ogaanno akhlaaq ereygaasi waa dhaqan idan marka ardayga aanu soo saarnay waxaannu ka rajaynaynaa insha allah aanuna wax ku soo barnay inuu yahay qof akhlaaq badan ciddii wax ku bartay dadkuuguma jiraan waxbay ku bareen imaam shaafici baa wuxuu odhanayay qofkii man zaadanii xarfan sirtu lahu cabdan qofkii maaragtay hal xaraf ii siyaadiya oo cabdi cataafogaan qofkii maaragtay wax ii siyaadiya oo wax ibara waxaan u noqon lahaa addoon oo kale aan noqon lahaa kuma qiimaynayno dhaqanka iyo akhlaaqda dadku waxa ay haystaan in qofku uu haysto taas laguma qiimaynayo atuu odhanayay tamuutu lusdu fi lghaabaati juucan walaxmu da'ni ta'kuluhu lkilaabu wacabdun qad yanaamu calaa xariirin waduu nasabin mafaarishu tiraabo dadkaba waa u sacbinaysaan aniga maxaa lagu sacbin waxaa weeye marka saasuu ahaayo in maarata maxaan ku idhaha wuxuu leeyahay marka kuma qiimaynayno inay qofku wax haysto iyo waxaa kuma qiimaynayno laakiin qofka waxaynu ku qiimaynaynaa dhaqanka iyo akhlaaqda iyo waxa ka muuqda uu leeyahay kaasaana ummadda uu qofku ku dhaafi karaa oo wax wanaagsan uu ku noqon karaa aad ayaa u mahadsantihiin shukran lakum jazaakum allah oo sida sharafta badan loo soo agaasimay waxaan uga mahadcelinayaa agaasimayaasha
hawshaan soo abaabulay oo ay kow ka yihiin iskuulka dugsiga sare oo Nawaawi maamulkooda iyo macallimiintooda iyo jaamacadda bariga Afrika oo iyaduna halkan markay ka hadlaysay sheegtay ama sida inooga muuqata ka qayb qaadatay iyaduna mar rabo inaan ku dheeraado waxaan rabaa 3 kelmadood oo kooban inaan ku iraahdo waalidiinta maadaama aan magacooda ku hadlayo kelmad waalidiinta iyo kelmad iskuulka Nawaawi ku socota iyo anigoo la dardaarmaya hal kelma ardadaan quruxda badan oo halkan soo fadhida kelmadda hore waalidiinta waxaan kula dardaarmayaa runtii maadaama aan magaca waalidiinta ku hadlayo waalidiintu waxa laga yaabaa mararka qaybtood inay xoogaa culaysa qaybtood ay ku hayaan macallimiinta iyo maamulka iskuulaadka dhiga waxa laga yaabaa ilmihii oo xanaaqsan inuu u yimaado oo uu ka cabanayo maamulkii iyo iskuulkii ardadii uu ka cabanayo macallimiintii halkaasna ay falcelin aan fiicnayn ay waalidiintu ka gudbiyaan waxa la yiraahdaa ka hor ba maama waxay u dhigtay ama hooya waxay u dirtay ilmaheedii iskuulka waxay ku tiri iskuulkii aad dugsiga aad dugsiga ma aadina ciyaar buu iska aaday hadhow markii uu isira leelehe waa laga soo baxay iskuul dugsiga waa laga soo baxay ayuu ku soo noqday isagoo aad diif uga muuqato gaajo iyo diif aad u tiro badan soo ay ka muuqato war maxaa kugu dhacay bay ku tiri wuxuu yiri hooyo maanta macallinkii quraanka ba subcis buu nagu googooyay subcis haye way warastay wuxuu yiri amaanu intaanu ka soo bilownay baanu yatasaaluuna ku geynay ama iyo yatasaaluuna maxaa u dhaxeeya maamadii waxay siisay wiilkii cuntay siisay gacantay qabatay macallinkii bay u geysay iyadoo xanaaqsan waxay tiri macallin wiilkaari jiroole weeye marka subciska tirada badan ka yaree soo garan maysid marka qaybtoona de waxa laga yaabaa falcelin aan fiicnayn inay waalidku u gudbiyaan xagga hadii la kuuro macallimiinta ilmihii xanaaqsan inuu yimaado ama soo dilay ama wax lagu dhuftay ama isagaba hadii la ku rooyahay uu gardaran yahay markaas ay waalidkii falcelin aan fiicnayn ku sameeyaan oo macallinkii wax ka sheegaan arinta iyada ah waxaan waalidka meesha fadhiya kula dardaarmi lahaa inay khatar ilmaha u tahay oo ay saameyn ku yeelanayso sababtoo aanu macallinna waa ahay waalidna waa ahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ritiga iyo macallinku waa khaldami karaa bini aadan weeye haddii uu khaldamo waxaan rabaa si tartiiba inaad inta u tagtid aad u sheegtid laakiin aadan hortiisa macallinkii waxba uga sheegin midda labaad waxaan rabaa inaan ku iraado qolada Nawaawi oo macallimiinta iyo maamulka runtii dadaal tiro badan baa samayseen meeshii uu taagnaa iskuulka Nawaawi iyo meesha aad hadda keenteen runtii farqi weyn baa u dhaxeeya waadna ku mahadsantihiin maamulka iyo macallimiintuba kelmadda ugu dambaysa waxaan kula dardaarmayaa dhalinyaradan quruxda badan oo maanta halkan ka qalin jabinaysa yaana oran qalin bedelanaysa hadda waxaan rabaa quruxdaan idinka muuqata iyo dadaalkii aad samayseen waalid baa ka dameeyay oo ugu xoog badnaa waalidkana waxaad uga mahad celin kartaan oo aanu annaga laftigeeyagu ku niyad samaan karnaa markii aad dadaalkiina sii laban laabtaan waxtarka aanu idinka sugayno waxa weeye inaad dadaalkiinii aad sii laban laabtaan khayr badan baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay caawo inaan ka soo qayb galo xafladatan aadka u quruxda badan qiimaha iyo qaayaha ku dheehan runtina ay ku qalin jabinayaan ardayda dugsiga sare ee Imaam Nawawi sanadkan 2021 ka qalin jabinaysa dufcadii 13aad 160 arday waxaan leeyahay hambalyo waa xaflad runtii aad iyo aad loo saagaasimay lamana soo koobi karo farxadda aan caawo qabo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad sida la sheegay waxaan leenahay qalin baydan qalin jabina waa qalin qaadateen qalinka sii soo faysta
aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin 12 sano wax soo dhiganayseen inaad noo yeertaan waanu markhaati ka noqonno xafladda runtii aad qabsanaysaan caawo oo ku qalin jabinaysaan ama ku qalin qaadanaysaan oo aad kaga baxasaan ama kaga taqarrujaan iskoolka Imaam Nawawi faraciisa magaalada Garowe runtii waxaan leeyahay waa xaflad qiimo gaar ah xambaarsan runtii aniga ay xambaarsan iyo marsalafta meesha fadhidaba waana ku faraxsanahay inaan in kala soo qayb galo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa runtii waxaan leeyahay dadka marsalafta meesha fadhido oo dhan idinka ay inii helayeen caawo waana saxo inaan la dhiirigeliyo xaq waad u leedihiin maadaama 12 sano wax soo baranayseen aad u socotaan dhinaca waxbarashada qaybta sare ee jaamacadaha insha Allah ta'ala waxaan rabnaa ama waxaan doonayaa inaan dhowr kalmo oo dhiirigelin ardada aan uga tago caawo waa habeen runtii farxad leh waxaan rajaynayaa 160 ka arday ee imtixaanka u fariistay Puntland runtii imtixaanku sida ardadu ama markii la galay la qiimeeyay aad iyo aad u fududaa waxaan rajaynayaa sidii Nawawi lagu aqoon jiray idinkuna inaad markii imtixaanka la shaaciyo aan ka maqli doono bahda wasaaradda waxbarashada 1 iyo 2 iyo 3 ama 10 arday ugu sareeya qayb kamida ama kulligiinba qayb kamida ka mid noqotaan insha Allah ta'ala waan rajaynayaa sidii sanadadii hore ee la soo dhaafay markii wasaaraddu ay shaacisayba Imaam Nawawi uu qayb uga ahaa qayb libaxlan uga qaatay runtii waxa keenay wax kale maahan waa macallimiinta tayada leh ee qiimaha badan ee iskuulkan iyo maamulkiisa isku xiran iyo isku xiraanta ardada iyo macallimiinta iyo maamulku iyo qaabka waxbaridda ee si wanaagsan wax loo baro aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxa leeyahay macallimiintu waa ku shafan yihiin runtii inay soo saaraan dadkan kaandiirta ardada anka dib ilaahay waa mahad iskale subhanahu wa ta'ala munaasabada aad iyo aad u qiimo badan oo aad u qurux badan weeye isbeddelkan nololeed iyo isbeddelkan horumar ama isbeddelkan aqooneed ee dhacaya arday 12 sano soo shaqaynaysay wax soo baranaysay waalidiintooda ay ku soo tabceen imtixaankii ugu dambeeyay ee finalka ahaa galay ee sugahaya natiijooyin wanaagsan inay ka helaan haddii alla idmo oo caawa u xafladaysanaya in waxbarashadii asaasigeed intay ka guuraan ay u gudbaan waxbarashadii heerka jaamacadeed waa runtii aad iyo aad wax u qiimo badan waxaana leenahay hambaliyo guusha aad raadinaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ka sarraysa idinka siiya aamin dhaha qodobka xiga waxa uu yahay noloshu waa maxadaad waa marxalado waad dhalatay ilaa 7 jir carruur baad ahayd iskool baa lagu geeyey 4 sano waxaad ahayd dugsi hoose 4 sano dugsi dhexe 4 sano dugsi sare intaa waxbarashadii bilowga ahayd ee iskuullada asaasiga ahayd ee lagu dhisayay bayskiina si aad marxaladda ka dambaysa ee muhiimka aad ugu gudubtaan waxaa idin bilaabanaysa marxalad cusub oo la yiraahdo marxaladda waxbarashada sare waxaa foodda idinku soo haysa 4 sano oo cusub ama 3 sano oo cusub ama 3 sano iyo bar cusub ay dambaysa oo PhD ah marka 3 marxaladood oo waxbarashada asaasiga ahayd iyo 3 marxaladood oo waxbarashada sare ah weeye waxbarashada inta lagu soo koobayo walow qofka insaanka intuu nool yahay markasta uu ardaya waxaan idin rajaynayaa qalin bedelashadan iyo safarka qaybtiisa cusub sidoo alla idinku fududeeyay qaybtiisii hore si ka wanaagsan oo idinku fududeeyo idinkuna aad yeelataan go'aan iyo casiima biidnillaahi tacaala waxaana ballan noo ah master degree meel ka sokaysa inaan lagu nasayn taa ballan ma noota hadii ilaahay yiraahdo ka maqan annaga inuu maqan yahay waa mahadsantihiin wajazaakumullahu khayran hay jamciyadda iyo dhammaan anoo ku hadlay afkooda gobolada Puntland meel kasta jamciyaddu joogtaba inaan u hambalyeeyno ardaydan maanta qalin jabinaysa ama sida la oranayo qalin bedelanaysa oo marxaladii waxbarashada asaasiga ama tacliimtii thanawiga ah dhamaysatay waxaan leenahay hambalyo insha Allah ilaahay waxa idinkaga baryaynaa insha Allah sida iyo si lamida guul inaad ka gaadhaan marxaladda jaamacadda idin harsan sidoo kale faraca iskuulka Imaam Nawawi oo Sheikh Xamid isagana dufca ka baxday dhowr bari ka hor intii aanan imtixaanaadka thanawiga la bilaabin ayay iyaguna sidoo kale sida lamida xafladii qabsadeen
madaarista dhammaan jamciyaddu ay gacanta ku hayso oo ku kala yaala Barani iyo Boosaaso iyo Qardho iyo Galdogob iyo Gaalkacyo Garwaba arday ilaa tira 8,000 ka badan baa ka baxay oo sanadkaana oo markaa dhammaystay form 4kii dhammaystay dhammaantoodna waxay sugayaan inay marxalada jaamacadeed oo takhasus kala duwanba leh inay u gudbaan hor iyo horaan waxaa la rabaa fariinta aan ku aadan aan rabaa insha Allah inaan u sheego waalidku juhdi iyo waqti badan bay ku soo bixiyeen ilmaha intay marxaladda iskuulka ay ku soo jireen haddana sidaa iyo si la mida waxa sugaysa marxaladdii jaamacadda oo hadda suldaanku ka hadlayay marxaladda jaamacadda waxaa loo baahan yahay in horta marka ugu horeysa la imaansado tayada tacliinta dalka gudaheeda ka jidha laba mas'alaba tacliinta dalka gudihiisa ka jidha ee marxaladda jaamiciga baa ilmaha way u anfacaysaa tan koowaad in waalidku iyo ilmuhu ay iska warqab joogta ay yeelan karaan ayna access ugu fududahay waalidku inuu mar walba la socdo ilmihiisii meesha ee waxbarashadiisa resultigeedii uu marayo sidaas la midana wuxuu ilmuhu fursad u helayaa in marxaladda jaamacaddu inay ka duwan tahay marxaladda waxbarashadu waxa laga yaabaa inay ka saacada kooban tahay inay ka fursado fiican tahay qofku heli karo galinka dambe inuu wax barto ama sidaas la mid ah uu heli karo galinka hor inuu wax barto xilliga runtii waxbarashada jaamacadda uu wato xilli la mid ah inay garab socoto waxyaalaha loo yaqaan hadda dhalinteenu ay aad uga hooseeyaan aan rabaa inaad culayska saadhaan oo ka mid ah in qofku xirfad uu barto xirfad skiilku waa waxa fursad kuu siinaya biri ka maalin markaa marxaladda jaamacadda aad dhamaysid ama xilliga aad waxbarashada jaamacadda aad ku jidhid inaad xirfadaada ay noqon kardho waxaad ku shaqayn kadhid ka soo qeybgalayaasha kale ee halka kan isugu jira wasaaradda waxbarashada mas-uuliyiinteeda kala duwan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad gaar ah bay tahay inaan ka soo qayb galo xafladatan munaasabadatan quruxda badan ee qiimiga qaabiyaha leh oo lagu maamuusayo ardada imaam nawawi dufcadeeda 13aad ee halka kan ku soo gabagabeynaysa marxaladii labaad ee una gudbaysa una diga roganaysa waxbarashada sare runtii qalin jabin lama yiraahdo tan oo kale waxaa la yiraahdaa qalin soofays safar dheer baa sugaya ardada annaga marka ugu horeysa waxaanu dhammaan ardada Puntland ee dugsiga hoose ee dugsiga dhexe aan leeyahay fasalka 8aad iyo dugsiga sare ee fasalka 4aad waxaan u rajaynaynaa uguna ducaynaynaa in Ilaahay ku guuleeyo farxadda iyo hambalyada caawa halka kan iyo fantasiyahana waa la qaybsanaynaa waxa sidoo kale anigu waxaan kaga duwanahay taytalo badan baan leeyahay waxaan ahay macallin waxaan ahay waalid waxaan ahay madaxda waxbarashada wasaaradda waxbarashada marka intaba waa kaga qayb galaya maanta caawa waa kaga qayb galaya caruurta halka kan joogta oo kuwa soo socdana waa u ducaynaynaa kuwa ka khuruujiyo ka baxayana waa u ducaynaynaa si gaar ah waxaan ugu ducaynaynaa ardada imaam nawawi oo aan rajaynayno in ay guulo sidii lagu bartayba guulo manaha ka soo hoyi doonaan insha Allah waxaan ugu ducaynaynaa inay A iyo B wax ka hoos maraynayaan laga heli geedigu waa dheer yahay waxaa lagu jiraa waa manhajna haddaad maqashid waa baratan lagu baratamayo tubta adduun iyo aakhiraba waa lagu baratamaya marka baratankaas inaa ilaahay idinku guuleeyo waa idinkugu ducaynaynaa marka horeysa dadaal inaad la timaadaan oo dadaalka aad labalaabtaan baa laydinkaga fadhiya aan guulaysanno dhammaanteen baa wada guulaystay waxaa guulaystay runtii waxa kale imtixaankan waa qiimeyn
ardayga markuu baaso waxaa guulaysanaya maamulka iskuulka waxaa guulaysanaya macallinka guulaysanaya wasaaradda waxbarashada guulaysanaysa bulshada ku dhaqan meeshaas guulaysanaysa marka kulli imtixaankaas waa ku wada jirnaa waxaan leeyahay oo ku soo gabagabaynayaa allaha nagu guuleeyo mustaqbalkana sida ragga iga horreeyay sheegeenna mustaqbalkiinana mid ifay allaha ka dhigo laakiin ka fakira haddeer jaamacadaha aad dhiganaysaan iyo aqoonta aad soo barateen xiriirka ay leeyihiin kana jaamacadda maanta doorashada idinka idiin taalla inaad wax doorataan wax wanaagsan doorataan oo aad ka bixi kartid oo aad isleedahay mustaqbalka waxbaad ka keeni kartaa inaad doorataan baa laydinka rabaa dhammaan waa uga mahadcelinaya kasoo qaybgalayaasha halkan isugu yimi waxaan leeyahay waa wada guulaysan insha Allah waxa weeyaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ubadkeenna mustaqbal ifaayana siiyo annaguna ay noqdaan kuwiina bedela oo kollayba naga fiicnaada waan rajaynaynaa inay naga fiicnaataan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa waxa weeye waa qalinbedelasho sida la sheegay inkastaan war badani oo laynaa waxa la yidhi haddii nin hadal badan ama macallimiin badan baa meeshaan ka hadlaya nuxurkii inta badna ayaa ku hadlay laakiin kelmado kooban baan sheegaynaa waqtiguna waa iska gebagabo raalli ahaada marka ugu horreysa waxaan leeyahay iskuulka nawaawi iyo qabanqaabayaashii iyo ciddii xafladda soo abaabushay iyo ardada waxaan uga mahadcelinaynaa ilaahay ku sokow waqtiga kan ay isugu kaayeereen meeshaan oo aynu ku kulannay waxaan leeyahay cid kasta oo gacan ka geysatay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa loo baahan yahay qalinjebinta ardada in marar badan lagala qayb galo ee loo tago la dhegaysto kelmadahooda iyo waxa ku jira dareenkooda qofka bini aadamka markuu arday yahay oo dhalinyaro yahay maskaxdiisa wax badan baa ku jira oo uu ku hadlayo marka iyadoo kala duwan micno kale noo samaynaysaa inaan waxa weeye inta badan aan dhegaysanno way ka hadleen halkan dareenkooda mid waxa weeye carabi ku soo jeediya soomaali mid ku jeediya midkii ku jeedinayay luqadda ingiriiska kulliba waa waxtar aqoonta uu leeyahay iskoolkaas bay caddaynaysa sida la sheegay qalinbedelashadu micnay dalka ugu fadhidaa iyo diinta micnahay leedahay waxaa sheegay suldaan qorane su-aalihiisii markaan ka soo qaato waxa ugu muhiimsanaa wuxuu yidhi yaa dalka wax ku baranaya yaase dibadda aadaya haddee horaan loo sheego waxaa la yidhi dal shisheeye habeendhixitin maahe wuxuu yidhi dal shisheeye neef male habeendhixitin mooyaane macnaha micnaha ay u leedahayba ma jiro dal shisheeye micna uu kuu leeya ma jiro dalkaaga ayaa wax ku ah arday kasta iyo jaamacad kasta iyo waxa weeye ustaad kasta waxaa micno ugu jiraa dalkiisa inuu yaqaano waxa ka jira waxa uu u baahan yahay waxa isaga laga rabo macallinkiisu wuxuu yahay waalidkii ku soo taqay ugu yahay 12 sano wax lagu soo barayay waxaa laga rabaa dalka inaad dib ugu celiso intaa jaamacadda ku jirto arrintan marka waxaan rabaa arday kastaba inuu hoosta ka xaqiiqo waxa noogu muhiimsan weeye dalka inuu ku soo noqdo muxuu dalku kaa rabaa wuxuu dalku kaa rabo waa inay isweydiisaa muxuu waalidku kaa rabaa maxay diintu kaa rabtaa dalku wuxuu kaa rabaa dal jacayl inaad leedahay buu dalku kaa rabaa dalkaaga inaad jeceshaa lagaa rabaa dalku wuxuu kaa rabaa inaad taqaano nabadda horumarka waxbarashada meeshaa ka soo gaadhay iyo jaamacadahaba iyaga laftigooda waxaan ugu baarayaa inay ardayda siday sadarka u dhigayaan amniga sadarka siiyaan siduu qofku naftiisana u badbaadiyo hantida iyo dalkana badbaadiyo marka waxaan leeyahay waqtiga badinayo inaan amniga ka wada shaqayno si dhow u wada shaqayno gacmaha isqabsanno waqtiga waxaan idiin siinay inay kulliig noqonno oo waxa aan wada leenahay uu noqdo dalkeenna meel lagu soo wada jeesano waxaan rabnaa inaan isdhegaysanno dadkana dhegaysanno waxaan leedahay macallimiinta iyo baa ugu war badan ama dadka dhegaystaan hadda booliiskuna waa dhegaystaan arrintaan la socdo waxaan rabnaa inaan qof kastaba gaariga uga degno jidka ku ogaanno amnigiisa la soconno laakiin fariin yar inuu noo soo diraan rabaa dhacdadaasaa jirta waxaase halkaas ka jira saasaa wuxu jiraan annagana gacan ka qabano waxbarashadiisuna tayay leedahay waxaan idin muuqatay inay ilaa 13 dabcadood ka soo baxeen
marka ugu horreysa ilaahay baa mahad leh waxaan marka ugu horreysa u mahad celiyaynaa waalidiintii duruufta adag ku soo baray ardada lana soo dadaalay heerkaana soo gaarsiiyey waxaan mar labaad u mahad celinayaa macallimiintii ku soo dadaashay ardada iyo maamulkii iskuulka Nawaawi oo heerkaa soo gaarsiiyey waxaan kaloo u mahad celinayaa jaamacadda bariga Afrika guddigeeda waxbarashada macallimiintooda mas-uuliyiintooda oo ah jaamacad mar walba u taagan inay ardada ku dhiirigeliso inay xaflada halkan ku qabsadaan waxaan filayaa xafladii shanaad oo aan ka soo qaybgalnay weeye oo arday ku kala jebinaya iyagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin ardada waxaan kula dardaarmayaa waa qalin bedelateen waxbarashadu ma dhammaato ha ka harinina waxbarashadeennana ka faa'iidaystaa ilaahayna idinku guuleeyo waxaad kaloo ogtihiin markii puntland la dhisay maamulkeeda in lagu liibaanay waxaad indhaha ku kala qaadeen maamul iyo kala dambayn waxaana wax ku barateen iyadoo kala dambayn iyo maamul uu jiro idinkana waxaad kula dardaarmaynaa inaad ilaashataan maamulkiinna dowladdiinna amnigana aad gacan ka siisaan laamaha amniga waxa ugu horreeya waa amni weeye amni markii la helo wax walboo horumar waa imaanayaan amniga marka see looga shaqaynaya dhammaan waxaa la rabaa waalidiinta ardayda macallimiinta in amniga laga wada shaqeeyo cid alle ciddii lagu dareemo amni xumo inay laamaha amniga u soo gudbiso xaafad walba ama guri walba wixii siyaado ku ah oo amni xumo wada waa inay soo gudbiyaan markaas baynu horumar gaaraynaa amnigana meel fiican laga gaaray boolisku waxaan aad ugu ammaanaynaa shaqo adag bay hayaan waana dadaalayaan laakiin meel walba ma taagna boolis meel walba qof innaga ah oo muwaadin ah oo reer puntland taagan la soo wadaaga marka lama amniga wixii dardaarana waxaa yidhi suldaan qorane fikirka qofka in laga hanto oo lagu mashquuliyo waxaan jirin maaha wey maskaxdiinna dhallinyaraad tihiin yaan si kale loo adeegsan wixii dardaarana shiikha qaata wey waxaan aad ugu celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad suldaan qorane oo haddana shiikheennii oo haddana aqoon-yahankeennii oo haddana amniga aad nogala shaqeeya waxaan leenahay suldaan waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol aad baanu kugu mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu